tina kharib maysa in institution based laga dhigay tribe society aaminsan qayb dalka kamida iyo mike ma qof u furan geeradood iyo qayb dalka kamida marka nation diskeena geedi socodkiisii aad moodid inuu dhaawac soo galay oo ay maqan tahay initiative-kii dadku wada ogolaan karo oo aan qayb ka ahayn kala tuunka iyo kala shakiga marka la caroodana isbedel ay imanayaan meelaha qaybtoodna aan inagu laftigeenu qayb ka nahay oo aqoonta aradan ee aqoonyahankeenu haddii la caroodo ay mid iman karto marka su'aasha halkaan ku weydiinayaa waa tan marka laga reebo dadka siyaasiyiinta ah ee siyaasadaha qabaliyadaysan isku haya oo haddii ay heshiiyaan qarankii uu heshiiyey haddii ay heshiin waayeen qarankii uusan heshiinin oo ummadiina ay u kala safan tahay aragtidooda inay isu yimaadeen inay kala tageen ku xiran oo the whole society aad moodid in botton laga xukumo oo aan policy hogaaminaynin uu jiro ma isleedahay aqoonyahanka laftigiisa aan u arko maaragtay in de aqoonti laftigeedu marka qaybtood ay ka aradan tahay inayba imanaysaba oo tusaale la dhihi karo professorka laftigiisa qaybka haddii la caroodo in la yiraahdo qaranku ha kala tago ciidamadu ha kala tageen waxyaabaha oo iman karto in haddii xasan meesha isku dhajiyo maanta dad kale ay fikri karaan in caasimadeena iyo ciidankeena iyo wadajirkeena khatar la geliyo ay dadku fikri karaan in shacabka dhexdiisii ciidankii qaranka oo isdilaya la dhex keeno oo kale ma isleedahay arrimahaas qayb weyn bay ka yihiin kharibaadda iyo geedi socodka dowladnimo adiga laftigaaguna ma isleedahay khalad hore oo jiray oo aad inaad saxdo bulshadana aad uga digto inaan waxa loo noqonin baa jiri kara soo dhow hilad waa maasanta si arrinkaas si aan su'aashaas aan u falanqayno waxaan hoos geynaynaa nomadic society aan marka hore aan su'aasha hoos geynaynaa sababtu waxay tahay intaan jabtarka qaybta kaleeto oo ah ii sheeg aqoonyaanka intaan soo gudbin nomadic society-gu ceebta ay leeyihiin waxaa ka mid ah nin carbeed ayaa gabyay oo wuxuu yidhi in qawad غزية غووت معناها قبيل وحو كذا شلديه جري غزية وحول هدي غزية أي باديوبان ولا باديوبا هودا هدي دجال نقول باكنه ما بيودي إنه دجال تصاحب يا مصر وقلنا وقلنا هودا معناها عقلك الصومالي وحول شيء يا الدينين سياسي أو عروضه أما سنة أو ربع أو وايو غير كيسو إني وايين إني وحوايين معناها وأيتم كمدة النوماديك سوسايتي معناها إن يعني وكالترال بروبلم كأن قبنا واي وهاكو سواري أقويان كاكو سواري أقويان كو مكي أو قف كستو أو جامعات قلي أو وركده هست أقويان نيا مثل سنكودا معناها أنا مركا أقويان كأنوا wuxuu ileeyahay erey oo fadfad ah marka waxaan dhaynaa il dheer garadaan dhaynaa laanu aqoonyahanku educated person qofka hadii la dhaho waa qof jaamacada galay oo warqada haysta and it's not necessary qofkaasi inuu noqdo intellectualist qof waxa jira wax taqaanaa luqadda ingiriiska waxaa la dhahaa qof waxaa jira wax la dhaho enlightenment qofka in aqligiisu iftiinsan yahay in garashadiisu ay fogtaa oo u dhiganta af Soomaaliga in dheer garad marka waan sheegno waxaan dhahnay hore waa uga hadalno waxaan dhahnay dadka Soomaaliyeed in dheer garad hadii la helay qof iyo laba waa laga yaabaa in la helay laakiin in dheer garad inta isku yimaaday leh xoog iyo awood iyo karti ay dadka Soomaaliyeed dhibaatada uga saaraan ya maqnaanshaha kooxdaas ayaaba waxay taaba caqabad kamida caqabadaha hortaagan Soomaali inay dhisanto meeshaasay macnaha ay ku jiraan wax garad ama culimaadudiin ha ahaado ama artist ha ahaado ama sargaal ciidan ha ahaado
ama jaamacadda ka soo baxo in dheergarad qofka gudbi kara xeendaabka deegaankiisa ka gudbi kara oo arki kara soomaaliyada guud oo loowi cadde iyo badhaadhe inta u dhexaysa maabka 7ka ayaa arki kara saasaan aan ka wadaa marka maqnaanshaha dadkaasu waa caqabad ka mida caqabadaha hortaagan dhismaha qaran soomaaliyeed oo taabagal ah saasay aniga ila tahay Mr. Hirido waana mahadsantahay tan qayba ilowday oo tan in haddii cara ay timaado inaan ciidankii iyo disintegrate dadka hadda ka fikiraya haddii xasan isku dhajiyo in qabiil la dayaaciyo qarankii uu soo kala baxo shacabkii amnigooda khatar leena ka geliyo ayadana miyaanay ahayn wax u baahan khalad hore u dhacayna ay ahayd haddana in laga digo taa ku noqon bal may Hirido haddiiba cudurki jiro inay wax u dhacaan waa suurtagal laakiin midda kaleeto oo xigmadu ku jirta waxay tahay in haddii qalad dhaco ee la arko ee haddana qaladki oo haddana dhaco ee la arko mar saddexaad iyo mar afaraad inuu qaladki dhaca ma aha waa in laga gaashaanto صفية ديارتها سودو ذكر جبريل سيرنا أبو سيسي كواري غير مرة حاجة اوكي جبريل كسو عبد الرحمن هو رجل كده عبد الغني ما رجع انا كسوى الريد وكسينا كما اركينا انا قال لما سوى لك قدام كسينا وهذا كحقرا ورجل كلو سوق قبنا ماشي عندكم انجينير كريم هايو عبد الرحمن ما وابا كدا عسقني طيب والله الله ku dhowro professorkan uu ku maadsan yahay waa in arintan aan caadeysanaa oo professorka uu hadda kadib madalada imaada Soomaali meel baan taaganahay istag baan noqonay marka aragtidiisa waa muhiim inuu professorka waxa uu noo sheegay aan dhageysano aan kululno on ka hadalna waxa wadankeena haleeyay horta ani waxaan dhiilaa lu'leyd iyo geeleyda wada la saar weliga shirno ma tagi reed bay qabaan eed bay tirsadaan xoolaha ay raacaan halkaas ay wareegaan inaga aqli badan yihiin u maleeyaa marka qaar weligood ma waxba ma weydiinin shirna nooma tagin nama ayna matelin laakiin eedda ayay ku dhacdaa geelay un baalna dadkaan aad arkaysaan Soomaaliya qaribaya waa dad wax bartay u badan yihiin laakiin dana gaar iska leh runtii aan ogna mid kale sida professorka sheegay professor halka tiri China markii waxba ka qaadi waysay Ingiriis Hong Kong 100 sano u saxday 100 sano kadib baan inta ka hadlaynaa baa yiraahdeen dagaal waaga waxba ay ku qaadi waayeen Soomaali goboladan aan raadinayna anagoo wax meel bagaarin oo dhulkeena aan dhisanin oo awood badan aan lahayn aan wadamo kale aan caasha Kenya xoreyn Ethiopia Soomaaliya weyn aan sukeen orodkaas waxaan leeyahay horta khasaare weyn buu noo keenay waana ku fashalanay waa ogaa professorka absolutely waa ku raacday dhisideena waxay ahayd samanka inaan dhisno 100 sano ay nagu qaadato markii dunida ay gaarto ama ka hormar kadib aan markaas aan u noqono walaalayaasha keena kale laakiin anaga tiyaan qasaarinay meeshii kale ma aan gaartaa sheegayso kala orodkii baan ku dhamaanay marka professor aad iyo aad baad arinta uma tahay hal wado laakiin ani waxaan dhiilaa degmo kasta oo Soomaaliya ku degan 95 degmo ay ahaayeen goboladii 18 ka soo qaad ugu dambeeyay waxaan dhiilaa shacabka guud dan guud Soomaali owned ay tahay SYL oo kala ay tahay oo grassroots laga soo bilaabo dadka shacabka iyo qofna yaan laga tagi dadkan yaacayo diyaaradaha buuxinaya oo shirarka noo taga waxay noo keenaan oo ma shaqeeyaanba ani waxaan dhiilaa dadkaas romantic iyo beeraleyda bal hadda kadib aan ergo u dirna waxay doona baada bal qofkii mas'uulka arintaana wadaan kule waa kugu dhiirigelinaya in hal adaga tahay waa ku ogaay laakiin ha oga ka barin waa ku raacsanahay corner Soomaaliya markay meesha joogto wiilashan meesha noo soo qabanqaabiyeen way ku maadsan yihiin arinta waa sidaas wax cidna nooma maqna walaalayaal carab aan u cararna iyo deristaan aan eedeyno iyo cid iyo annaga ayaa dambiga iskale tomorrow haddaan dhahna aan gacmaha isqabsano walaalayaal walaala aan noqon tomorrow Soomaali nation xageeda ku istaagaysa intaas baa naga maqan waa maadsan tahay professor ما شاء الله وريد رسايا
aad baan u salaamay idaacadda iyo professorkaba waana dhegeystay hadalka qaybtii hore walow aan qayba ka yar baxay markaa professor waxaan weydiinayaa maadaama caqabadeenu ay ka bilaabantay dhismihii dowladnimada ee ka timid iliidkeena tusaale ahaan somaliland iyo soomaaliya isku beeray buu ahaa ilaa haddana dariiqii baa lagu jiraa marka xal ma uu noqon lahayd in labadaa horta la kala guro dabeetana soomaaliya gaarkeeda loo hagaajiyo kabacdina la isla gaaro si caqabadan looga baxo waana ku salaamaya aad iyo aad waana dhegeystaa doodahaaga waana la qabaa ninkan inaad timaado oo dadkan egaska jooga aad rayigooda iyo halkay taagan yihiin ogaato aadna waan kuu salaamaya asalaamu calaykum okay Mr. Idris waa ku salaamay saaxiib waa ku salaamay very quickly elite-ka Soomaalida waa ildeer garad waa sheegnayo elite-ka Soomaalidu 60kii markii la sameeyo Soomaaliya waxay kala gara waayeen mirihii faraqa ugu jiray iyo kuwii geedka saaray bay kala gara waayeen marka qaarkood waxaad arkaysaa ama marka aad dhamaanteen waa raacna diyaaradaha waa raacnaa markaan diyaaradaha raacayno waxaa intaan diyaaradu intaysan kicin gabar ama wiila soo baxa waxaan nolon sheegaa baahalkii dhaxda lagu xiranayay haddii oxygen-ku yaro ha soo kaco haddii suunka lagu xiraayay hoosta waxaasaa ka soo baxaaya diyaaradaha daaqadaheeda safety measureska marka laga hadlaayo waxaa dadka loo sheegaa dadka waaweyn oo da'da awaayeelka ama qofka oo hooyada iyo aabbaha inay xirtaan oxygen-ka ayagu ay xirtaan intaysa ilmaha u xirin marka anaga waxaa nagu dhacay inaan oxygen-ka ilmihi u raadino ayadoo waalidka uusan oxygen-ka uun u xirin oo marka ay isa dhintaan arrinkaas horta marka dhibaatadaas weli waa taagantaa weliba waxaa dheeri ah oo kaleeto oo oo cajiib ah qofka Soomaaliga ah ee hogaamiyaha ama ummadda hortaagan hadduu dhaho war aan xaqiiqada raacno waa lagu eedeeyaa qofka dhahaya dhula maqan waa dagaalamaynaa Ethiopian aadaynaa Kenyan aadaynaa kaasaa la taageeraa that's why markaad fiirisid dowladdii 69kii gaar ahaan madaxweyne Cabdirashiid Aluur Raxmade hubka ugu fiican oo ku dagaalami jiray oo kula dagaalami jiray dadka ka soo horjeeda waxay ahayd inuu nationalism iyo dhismaha ciidanka uu xoojiyo oo asoo ka dhigaya inuu dhul soo celinayo taasaa waxay siinaysay credit oo uga adkaada aada cadde sidaasoo kaleeto dowladdii militariga generaal maxamed siyaad barre 7 sano waxay isugu aadanayeen ciidan uu dhisayay dhulka maqan iyo Ethiopia iyo cadawgan ka soo xoreynayno dhahay marka dadka Soomaalidu generaalka waxay weydiin waayeen war generaalo aw dastuurkan aw doorashadan aw xuquuq siyaasadeed ma weydiin maadaama uu leeyahay Ethiopian aada oo dhulka soo dhicina dadkii Soomaaliya xirtay oo asay daba kacay ilaa uu gud ku shubay marka elite-ka nafsidiisa ayaaba halkii gumaysiga waxay ka dhex arkaan fursad ay u isticmaalaan cadowgooda inay ku jibiyaan ama ay powerka ay ku sii haystaan taas waa mid kale waxay tahay oo soo hartay oo aan rabo Idris inaan u sheego erayga la dhaho Somaliland Francisco markii uu dhulka Soomaalida